kulanti wanaagsan saaxiibada aynu jecelnahayow ciwaanka maanta ee sheekadeennu waa ku dayashada indhaha laba dameer baa beri nin ganacsada ah u rarnaa ama alaab ay u saarneed midkood waxa uu siday cusbo kan kalena waxa uu siday buush dameerkii cusbada siday ayaa ku soo baxay balli ay biyo fadhiyaan wuxuuna dhex galay ama waa uu dhex galay cusbadii ayaa ku milantay biyihii waxaanu ku soo baxay asaga oo aan wax culays ah sidin reerayntii ayuu boodbooday waanu riyaaqay dameerkii buushka siday baa isaguna biyihii dhex galay asagii oo filaya in culaysku uu ka yaraado sidii dameerkii cusbada siday ayaan darasi asagii buushkii uu u galay biyo badan markii uu see baxana waxa uu kici kari waayey culayska badan ee uu ku kordhay ayuuna la yaabay halkii uu ka murugooday isagoo dhulka fadhiya ku dayashada indhaha waxa ay sababtaa guuldarro iyo ciil ayaana sheekadan laga dheehan karaa sida arki kartaana labadan dameer waxa ay midkood midka kale uga daysanayay arrin uu sameeyey laakiin ma uusan filaynin in arrin ka duwan uu la kulmi doono waana sababta loo yiraahdo iska dabaydaysi dameero ayaa ku rima halka Soomaalida qaarna ay dhahaan ku dayashadii indhaha la'eed ee dameerada oo kale ayad wada mararka qaar markii ay doonayaan in arrimo gooniya ka hadlaan labadaasi dameer sheekadii ay la kulmeen oo ah sheeko Soomaalidu ay soo qaadato micna ayaa inoogu sugan ee saaxiibayaal ka faa'iideysto share gareeya bulshada Soomaaliyeed la wadaaga muuqaalkan xiisaha goonida leh mahadsanidin soo dhawaada saaxiibayaal waa inuu idin jecelnahay boggaana saaxiibayaal kala kiciya wuxuu gaari rabaa 500 oo follow sidoo kale waxaan idin ka codsanaynaa inaad like saartaan muuqaalkan share gareysaan mahadsanidin soo dhawaada